بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabnaa inaan maanta wax ka duubo su'aal dhowr jeer la soo weydiiyay oo ku saabsan Trust Wallet qaabka loo isticmaalo Trust Wallet iyo sida loo sameeyo marka waxaan rabaa inaan taas idin tuso horta qaabka loo sameeyo laakiin intaana bilaabin sida loo sameeyo Trust Wallet waxaan rabaa warbixin yar inaan ka sameeyo horta nooca Trust Wallet waxa uu yahay sida la soco sida moogi casharada inaad la socotaan oo playlistiga YouTube-keena ku jira oo aan kaga hadlayo qayb kamid ah aan kaga hadlayo walletska ama meelaha akoonada lagu save gareysto lacagaha crypto-da waxaa jira laba nooc oo wallet crypto wallets ah kuwaas oo la kala yiraahdo custodial wallets iyo non custodial wallets custodial wallets waa walletyada lagu haynayo crypto-daada sida Binance oo kale non custodial walletsna waa kuwa adiga aad haysanayso sida Trust Wallet-kan aan rabnay inaan sameeyno kale marka haddii xogaa fasiraad yar oo masharaxaad yar aan ka bixiyo custodial wallet sida Binance Coinbase oo kale waxay la mid tahay sida lacagta markaad geysato bangi kaba soo qaad badda Soomaaliya waxa laga isticmaalaa Premier Bank, Dahabshiil Bank, Salaam Bank يعني lacagta markay ay ku hayaan oo kale waa custodial yani ayaga lacagti ku haya non custodial waxay la mid tahay sida adigoo lacagti u soo gatay qasnad oo gurigaaga dhigtay ama xafiiskaaga dhigtay oo lacagti ku haysta marka labadaba waxay kala leeyihiin faa'iido iyo khasaaro midda custodialka sida Binance oo kale hadii ay ku hayso lacagta faa'iidada ay leedahay waxa weeyaan in si fudud aad ku heli kartid hadii aad ilowdo password oo kale aad forget password dhigi kartid oo email lagu soo diri karo in qolada supportiga ay ku caawin karaan khasaarada ay leedahay marka custodialka waxa weeyaan in qoladaas ay lacagta ka dhigi karto Binance oo kale Coinbase oo kale ama wax la mid ah wayna jirtaa dad badan oo uga dhigtay Soomaali badan oo garanaya oo uga dhigayna lacagana way jiraan qolada Binance marka ay custodialka dibka ay leeyihiin waa sidaas nin custodialka oo mid aan maanta rabnay inaan sameeyno oo Trust Wallet oo kale waxaa kaloo la mid ah Ledger Wallet-ka oo hardware wallet ah waxaa la mid ah MetaMask iyadana kulligood waxa la yiraahdaa waa nin custodial ayaga faa'iidada ay leeyihiin waxa weeyaan lacagtaadii adiga haysta cid kaama celin karto cid kaama xakameyn karto kaama qaadan karto laakiin ayagana mushkiladda ay leeyihiin waxa weeyaan waxay ku siinayaan wax la yiraahdo recovery phrase ama private key ku siinayaan haddii kaas uu ka dhumo recovery phrase kaas oo 12 xaraf ilaa 24 xaraf ah 24 words ah hadii uu ka dhumo way ka dhuntay lacagtaas oo ma heli karaysid hadii for example qof uu ka xado oo Trust Wallet ko kale intuu ka furo uu arko ayadana sidoo kale ciladaas ay leedahay marka kuwaan oo non custodialka marka hadda maanta waxaan rabnaa marka inaan Trust Wallet intuso cashir wallet ku saabsan crypto wallets ku saabsan wuxuu ku jiraa maaragtay YouTube-keena halkaas ka daawan kartaa marka hadda waxaan tusayaa Trust Wallet marka hadda waxaan bilaabaynaa inaan soo dejino Trust Wallet markaan timaadid Apple Store-ka oo aad ku qortid Trust Wallet ama Google Play Store-ka oo Trust Wallet ku qortid oo ay ku soo baxdo Trust Wallet waxaad samaynaysaa hadda maadaama hore u soo dejiyo calaamadaas siinaya laakiin marka kale waa ku dhufan kartaa soo dejin kartaa laakiin waxaad iska hubisaa midda saxda inay tahay hadda midaan kala arkaysaa 4.5 inay tahay dadka maaragtay yani rate la siiyay maaragtay inta warbixinta oo dhan inta qof ay soo dejisay waxyaabahaas oo dhan ku jira information-keeda marka iska hubi kuwa fake lagu samaysan karaa hadda kan 1.7k rating-kiisa haysataa sida u jeedid marka intaas hubisid ka ku dhufo wuxuu sameeynaa marka uu soo download gareynayaa markuu dhameeyo ayaa insha Allah taala aan isku soo noqonaynaa hadda intuu download kooda waa video waxaan leenahay pause markuu dhameeyo ku soo noqonaynaa okay hadda markuu dhameeyo Trust Wallet-ka download gareyntiisa waxa ku dhufanaysaa open marka ku dhufatid wuxuu yimid halkan oo imaanaya laba option ku siinaya oo ah create new wallet I already have a wallet marka anaga hadda waxaan rabnaa marka koowaad inaan sameeyno new wallet ama wallet cusub inaan sameeyno marka create new wallet ku dhufanaysaa طبعا wuxuu ku weydiinayaa passcode u sameeyso passcode-kan waa wallet-kan hadii aad soo furto ayaa loogu talagalay inuu ku shaqeeyo marka mid fiican isaga sameeyso
ka dhigayaa aniga kan oo kale 1 2 3 4 5 6 ma aha password fiican laakiin just waa tusaale marka meesha waxuu ku leeyahay notification ma rabtaa notificationka waxa weeyaan markii uu qiimaha bitcoin-ka oo kale markay kor u kacdo suuqa intuu yahay waxaas oo kale inuu notification ku siiyo marka iska enable iska dhe hadda marka waa sameeyey waagii hore waxay sameyn jirtay trust wallet waxay recovery phrase-ka ku siin lahayd waagii hore saasay ahayd inay recovery phrase-ka ku siiso aad save garaysatid kadib ay shaqeyso hadda laakiin automatically horuu ka sameeyey marka fund your wallet uu ku leeyahay laakiin daartid skip iska dhe haddaa fund haddaa tiraahdeed wuxuu ku geenayaa meesha aad fanka ka sameyn lahayd marka dhib male haddaa skip tiraahdeed hadda marka walletka uu sameeyey hadda marka qaladka ama security risk weynka jiro waxa weeyaan xarfihii kumuusan siin recovery phrase-ka oo aad save garaysan lahayd qaabka ku save garayn kartid marka waxaa waaye marka halkaa ku dhufatid meesha walletka amaba settingska xataa jecla haddaa ku dhufatid settingska kuma jiro marka halkaa ku dhufatid walletka halkan main wallet waa ujeedaa ka bacdi wuxuu ku leeyahay backup manually ama backup to iCloud markii aad isticmaalayso Google Android-kan wuxuu ku leeyahay doonaa Google Drive-ka ku save garayso aniga shakhsiyan ma jecli inaan iCloud-ka iyo Google Drive-ka ku save gareeyo sababta hadhow haddii la hakin gareeyo ayadana waa la arki karaa backupkiisa ma hubo inay encrypted tahay marka backup manually-ga aan jeclahay mar walba laakiin haddii lacagta iska yar tahay waa ku save garaysan kartaa ayadana marka backup manually ku dhufo marka backup manually ku dhufato wuxuu ku weydiinayaa koodkii adaayay koodkii aan gelinaynaa marka su'aalo ku weydiinaya wuxuu ku leeyahay secret phrase-kan wuxuu furi doonaa walletkaaga aan logo ku samayn doonaa marka haddii qof arko wuxuu samayn doonaa maaragtay uu ka qaadan karaa marka hadda anaga dabcan idimo tuseen because waxaan diidaynaa in dadka isticmaalaan marka kuwaan ku dhufo continue dheh xarfaha marka waa kuwan aad ujeedid xarfaha marka ujeedaan ka bilaabanayo ko inspire ka bilaabanayo ku dhamaanayo inflict ku dhamaanayo waa 12 xarfood saa ujeedid xarfahan haddii qof bilaadan uu arko walletka wuxuu samayn doonaa intuu save garaysto ayuu wuxuu sameynayaa uu isticmaali ka doonaa marka hadda waan tusi doonaa aniga hadda waxaan ka qaadayaa sawir laakiin adinka sawir ha ka qaadanina sababtoo ah sawirka daftarkiisa laga arki karaa Soomaa marka hadda sawir aan ka qaadayaa sababtoo waxaan rabaa inaan idin tuso markii hadhow sida loo soo celinayo laakiin adinka qoraal ahaan meel ugu qorta waraaqdaas haddii ay kaa dhunto aad ku qoratid waa wareer haddii kaa gubato waa wareer marka waa inaad aad iyo aad u hubisaan meesha aad dhigaysaan qofka arki doono waxaasoo dhan aad samaysaan way markaan dhaho continue markaan dhaho su'aalo ku weydiinaya marka uu ku leeyahay okay word phrase number 2 keebuu ahaa anaga number 2 wuxuu noo ahaa quiz midka number 4 kee way ku leeyahay wuxuu noo ahaa anaga wolf midka number 8 kee waaye anaga wuxuu noo yahay quick number 12 waa inflict intaas wuxuu rabaa just inuu kaa hubiyo inaad save garaysatay markaad tiraahdo continue confirm markaad tiraahdo save aad tiraahdo halkaas xataa magaca hadaad rabto ka bedeli kartaa macnaheedu markaas waa save garaysatay walletkaas marka qaabka ku hubin karno inaad maaragtay sax tahay waxay tahay waxaa la sameeyaa for example meeshan waxaa lagu soo diraa maaragtay cryptada aad rabtid inaa adresyada laga hubiyaa waxaan sameynaa hadda bitcoin oo kale for example aan furaynaa si aan aragno adreskeeda receive aan leenahay marka bitcoin adreskeeda marka receive dhaano adreska uu nasiyo waa mid ka bilaabanaya BC 1Q waxa weeyaan adresadan waxa la yiraahdaa native waxay kala leeyihiin maaragtay legacy wuxuu ka bilowdaa 1 mid waxa jira la yiraahdaa segwit wuxuu ka bilowdaa 3 midkana native la yiraahdaa PC buu ka bilowdaa markaad wuxuu ka bilowdaa PC saa ujeedaan wuxuu ku dhamaadaa V7WVT marka sameynaa asan free screenshot iraan ka qaadaya si maaragtay aan hadhow iska inuu sax yahay aan u hubino screenshot aan ka qaadaya okay marka hadda kaba soo qaadba marka walletkan waa haysataa bitcoin baa kugu jirta ama any other crypto USDT waxba kugu jira telefoonkii waa ka dhumay ama waa laga xaday ama waxba dhacay sidee maaragtay ku soo ceshan kartaa marka hadda tusaale ahaan waxaan sameyn doonaa waxaan delete gareyn doonaa midkan
remove baan dhihi doonaa delete garaynaya kadib marka app store ka iman doonaa hadda marka waa kan trust wallet iguma jirto marka waxaan rabaa hadda waxaan dooran doonaa optionka ah soo download garaynaya optionka waxaan dooran doonaa already have a wallet midka ah kaasaan dooran doonaa xarfii way noo soo gareysan yihiin marka waxaan rabnaa waxay tahay xarfahaas markaan gelino in ay soo baxdo adresskii uu isku mid noqdo bitcoin-ka kale haddii markaa lacag noogu jirto moogtaa lacagteena u arkeynaa marka taasaan sameynaynaa markuu soo download gareeyo okay hadda uu yimid trust wallet open aan leenahay hadda marka waxaan dooranaynaa optionka I already have a wallet marka passwordka u sameyso one two three okay enable iska dhig male oo loo iska dhig hadda marka waxa meeshan wuxuu ku leeyahay private key secret phrase waxa soo kale marka anaga hadda midka arabno waa secret phrase because xarfaha aan haysano waa secret phrase طبعا meeshan waa terms and conditions iyo waxyaabo warbixin uu ku siinayo marka ku dhufatid main coin wallet yani waxa weeyaan walletyo badan inuu support gareeyo marka kaas la iska dhuftaa hadda marka meeshan uu secret phrase kana rabaa anaga marka xarfii baan gelinaynaa mid baan u gelin doonaa marka saas uu qora marka uu soo boodaya Soomaaliga inspire oo kale oo ku dhuftay number 2 oo kale anaga waxay noo tahay quiz oo soo boodaya waa ku dhufanaysaa marka waan dhameynaya markaan dhameeyo isku soo noqonaynaa okay marka hadda 12 xarfaan galiyay dabcan waa qarin doonaa xarfahan sababtoo ah ma rabno inuu qof inta qaatin oo isticmaalo oo hadhowna dad kale lacagaha ka xadaan hadii public ay noqoto waa wareer marka hadda markaan intaas sameeyno waxaan leenahay restore wallet okay hadda wallet ku keenay dabcan of course waxa kuma jiraan hadii lacag ay noogu jir leedo imaan lahaa marka manage crypto ku dhufanayaa halkan waxaan ku qorayaa bitcoin si aan u aragno bitcoin addresskii aan haysanay inuu yahay in kale calaamadda ku dhufo receive leh saa u jeedaan waxay ka bilaabataa BC1Q waxayna ku dhamaataa V7WVT screenshotkii aan haynay iyo inay tan isla yihiin baan rabnaa marka screenshotkii aan qaadnay iyo way isla yihiin midka hadda aan haysano ee trust wallet okay marka hadda hadii aad rabto for example USDT oo kale aan ku soo dirto anagoo kale for example waxaan haynaa USDT BIP20 midka la yiraahdo ama ku base gareysan Binance Smart Chain oo kale ayaan haynaa marka meeshan oo kale waxa ka dooran kartaa networks halkaas oo kale waxa ku dhufanaysaa BNB Smart Chain marka waxa ku soo baxaya USDT fara badan qaar badan oo fayga anaga midka aan rabno oo isticmaalno midkan kaas oo kale ku dhufanaysaa qofka marka aad rabteen aad u dirto addresska kale receive leedahay addresska waa kana asoo maarid ka bilaabanayo wuxuu Ethereum ka iyo BNB Smart Chain ka iyo kuwa badan waxay ka bilaabdaan 0x maadaama same code ay yihiin marka 0x kaas uu ka bilaabanaya copy baa leedahay qofka u diraysaa ama screenshot ahaan u diraysaa si qofka lacagta kugu soo diro marka xarajeyna intaas tahay maaragtay xogaa cashir yar oo kooban oo ku saabsan qaabka u samaysan lahayd trust wallet isla markaana qaabka u xifdisan lahayd laakiin midda aad muhiimku ah waxay tahay haddii qof asxaabtiin kaba soo qaadba uu inta yimaado uu telefoonka ka qaato oo halkan inta yimaado main wallet-ka uu ku dhufto oo halkaas inta yimaado uu yiraahdo backup manually halkan ku dhufsado dabcan waxa laga yaabaa adiga inaa code ku xiran u soo baxdo xarfaan kale u soo baxaan qofkaas sawir yar haduu ka qaato bas way wuxuu ka xadi karaa waxa la wixii ku jira marka xarfahan iyo telefoonkaaga waa ina aad iyo aad u ilaalisid insha Allah taala marka saasan isku ognaay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh